بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمرنا كلها سهلا. أيها الطلبة والطالبات، أرضي عشرك عن ما أنت قارن دونه وحويه waxaynu ku soo jirnay wuxdadii labaad ama cutubkii labaad ama chapterkii labaad ee tawxiidka hal cashar baynu soo qaadanay oo ka hadlay xub rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wa saxaabatihi darsigeen labaad wuxuu ka hadlayaa insha Allah ta'ala al-bid'a wal khurafat wa ahkamihim bid'ooyinka waxyaalaha diinta asalka ku lahay khurafaadna waa leeyahay bid'ana waa leeyahay khurafaadna waa leeyahay marka taasaynu ku qaada dhigi doonaa wax badan baa dadka isaga khaldan waliba daayirta waxa uu diin u haysto diin ahayn baa jira wax diin ah oo diin u haysan waa jiraan marka balaynu kala cadayno insha Allah ta'ala inta aragtideenu tahay ardayguna ku dadaal arintaas wuxuu diin ka dhiganayo maadaama Ilaahay uu hortagayo soo kaligiisa waxda aan cidna tarjubaan u ahayn inuu ardaygu maxaan diin ahayn kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga soo ka duulay oo barto ayaa leeyahay ka doonaya casharka intaynaan galin insha Allah ta'ala waxa ka horeeyo xogaa yar oo ahdaaf ah oo casharku u baahan yahay oo ardayga laga rabo inuu horay u sii barto waxa kamid ah ardaygu inuu barto maqsuudka bid'a markii la bid'u ujeedada laga leeyahay maxay tahay xukunka bid'ada inuu barto fi diin qaybaha bid'adu u qaybsanto bid'ada xagga diinta laga hadlayaa inuu qofku barto ayaa muhiim ah casharkeena marka sii dhaxgalaynaa تعريف البدعة وأنواعها وأحكامها عشر كوب انتاس بدعة إن لقيحه حكم كذا إيوه نوع جديد بدعة مركز لقيح إيوه لغة وحلوير هذا على الاختراع على غير مثال سابق إن هذا وحكينته أنا عندك جوهري أنا عندك جوهري نتكنت تصالحان أحيانا استعمال الموبايل هذا كمبيوتر هذا كوارد ديار هذا لامية اسمياشا waxaanu ku weelasha ku cunno wax qarsano waxa soo dhan qolaa samaysay ay ikhtiraacay isoo qofku cidna uga dayan buu sameeyay ilaahay quraanka wuxuu ku yeeyay badii'u samaawaati wal ard ay muqtari'uha ilaahay baa bilaabay dhulka iyo cirka ilaahay baa bilaabay ala ghayri mithaalin saabiqin asagoon cidna uga dayan cid uu ka tixraacay iyo injineer khadka u dajiyay markuu dhulka alla sameeyay cirka injineer shaxla u dajiyay oo ka tixraacay ma jirin رسولك عليه الصلاة والسلام وحال يقول قل ما كنت ده نبي محمد وما أهي بدعا من الرسل أي أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد قفك يقول الرسول نقضه والرسول ما أسغل لقب بالله ما أهي بل تقدمني كثير من الرسل ويقال وحكول هذا ابتدع فلان بدعة يعني وحال قوله ابتدأ أسغل بالله وحق اللغة يا كلمة بدعة حق اللغة الاختراع إن هذا اختراعه وحكينته على غير مثال سابق أنا قلنا كجورين أداء وحن سميه حاجة بدعاء اللغة مركل تشوجو ساسة نغنيسا حاجة شرعية أما اصطلاحها بدعاء وحلي هذا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقيدة وعمل وكا أنا هذا كوبان أو قرح بدن وكا ما أحدث ووحي لقصة دري في الدين على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه أو خلاف سن وحي النبي محمد إلهي أسوديبي صحابة السنة وقتك وحي خلاف سن وعقيدة أم عبادة من عقيدة وعمل عقيدة ولا قرنية وقفك وحي آمنوا وعمل ولا قرنية وعبادة إلهي اللي يقولوا العقيدة عبادة ويصوصتها ما كان نغفير marka inaad diinta ku soo kordhiso waxa nabi maxamed ogeyn saxaabadiisuna ogeyn oo ama aqeeda ah ama amal iyo cibaado ah baa bidca leeyahay waa laba qaybood buu qabsata bidca ka si guud loo fiirsho oo kor laga eego formada guud laga eego bidcada laba qaybood baa loo qabshaa ibtidaa fi alaadat caada laha waa caado diin shaqo kuma leh ibtidaa fi alaadat bal hadii male iska banaay kal muqtaraxaat alhaditha waxyaalaha inagu aynu gacanteena ku samaysano weelasha gawaarida موبايلada boorsooyinka waxaana wada haysan oo isticmaalo adawaadka hadda 10 aan ku soo gudbinayno dhan projectaradan iyo kaamirooyinka iyo shaqo hawshan dhan waa bidcatun fil aadad waa loo baahan yahay xilliga nabiga kaleey salaatu salaam sidaas loogu baahnaa nabiguna kama hor imaan saxaabaduna kama hor imaan diintuna ma diidin horumar baa leeyahay waa caado shuqul kuma laha diinu hada mubah waayo qaacida oranaysa al aslu fil aadati al ibaha qaacida الأصل في العادات الإباحة
caadaadka iyo dhaqamada asal waxa waa inay bannaan yihiin wixii aan diinta ka hor imaanayn markuu diinta ka hor yimaado asalkaasu ma bannaanu noqonaya usuushii kale wuu ka baxaya waa gartay qodobka labaad waxa weeye ibtidaac fi diin وهذا محرم waxa loo ogolyahay ma diinta inaad wax ku soo darto waa muharram waa ilaahay quraanka muxuu ku yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan diinti waa inay dhammaystiray maanta aan buuxiyay diintii wax ka maqan male marka diinta aad wax ku soo darayso adoo aan xaaladaadba toosnay marka wax ku soo darayso adoo horta yaata isqiimee rasuulku wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفك كسر در الدين توحن كميدا هين ولجوع علنية حللية وروحنا الدين تكمل معه أرد نقلتك بقللي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك عبادة يعمل فرش دين كدجا وحن دين كميد أهين وأن كتابك القرآن كي سنة النبي من كتيرين قفك دين كدجا فهو رد أدر لتك بقللي وحن كأقبلنا ما ردت بقللي رد كلمة ده رد الدون كمالو علنية آخرنا waa lagu celinay adduunka waa lagu celinay waxa la leeyahay waxa odataa diin ma aha naga ka xibalay xagee ka keentay kitaabkan ku qoran yahay maya sunnada nabiga ma ku jira maya orad nagala tag baalid aakhira markuu la tagana indhaha laga dhufanayo waayo waxa ilaahay loogu dhawaado ma aha labada marka boos labada gooboodba waa radu ma laga yaabo marka qof laga yaabo 50 sano 60 sano 70 sano ilaahay inuu caabudahay maalinta qiyaamada markuu tago in la yiraahdo fa huwa rad orad la tag waxaagi ما أخسر خسر الدنيا والآخرة وقف خساري صادنا ده واجب هو أنت داير تتهي أرض يرتهي فورك أن دافع داير إن تسكس حضو واحد له يقول وانس واحد له يقول وانس كوح ملء فرقة له ما ترتو جروب جاره ملء واحد له يقول وانس وإله كوا ضيع سبحانه وتعالى كوح يا جروب وهابي يا كذا يا حر يا كلام أديك بس إلهي أديك إلهي ما هنا دينتا هذا جروب يكوع وعررته واد مرت uga noqoto qola gaara adaa laga rabaa diintaada waxa way ilaahay waxa loo hortagayso adiga waa lagu aasiya kaliya ba qabl uu gelinaya laga tagaya ilaahay baa lagu horgeynaya subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaame waxa aad ilaahay loo hortagayso waana iska saxda inta nooshahay ba fursad haysata maalin aan fursad jirin inaad dawdawlayso maaha ama cidna aysan dawdaw ka dhigaysan leeyta wax ku tarimayso leeyta waa hal yanfa'u leeyta shay'an leeyta shabaab buuca fashtarayto leeyta inta wax ku tarid inta wax ku tarayso shaqayso maraysa wax ku dari doonin waxa waxa maraysa wax ku dari doonin hala sugo waa gart bidcada diinta oo tadamba ahayd baa laba u sii qaybsanta mid waa qawli waxa loo yaqaan al-qawli i'tiqaadina waa leeyahay وبدعة قولية فرق باكو هالله قولي اعتقادنا ولا حق عقيدة سيد جهمية أو كلات جهم من صفوان كانوا جرهي العراق بغداد يملاك الصباحي وهراء معتزلة ده ويجوا عقيدين خلدن أمسن قلات الصوفية صوفيون قليها الصوفية اللي هذا ويجوا حدود ده في وقارنوا هي صلاة دي بوانا كوريا صني عبادات بوان دافن يقول لا بالي هذا صوفيا واسل عنها شغل سكبلا قارب عليه أن أقول لا الصوفية حدود دي بيدافن مال كلا أي وعوي أي شو قارب رامله تركا حوالها سكوريجو سلاد أنتو كانوا بلا سكوريجو أقواش رأيه عقيدين كودو عقيدين خلدنوي وحال بذا صائر الفرق الضالة واعتقاداتهم فرقوين كيجون لونصن ومارتي شيعة أي كمتها 12 اللي هذا وصحابة رسول الله دن جالسية القرآن كوحكو ضراي يا وحصلنا لسكيل اليوم ولبا جهمية معتزلة هذا أول ساعة ماله وهذا سكبا باي لكن كوا قدرا وحوي لجوه باي والشيعة الصفوية الاثنا عشرية الإمامية ولما كعراق قبصري وحوي هذا الحوثي جاي من قبصري كتيره وإيران صلقة أطهاي وصحابة رسول الله يقولون أفر مركز لغيره وعلي لبدي السوية فاطمة مركز لغيره ويروا قالوا حرضوا وكبحين وتوحيد كذا واحد كميدا أبو بكر إيو عمر إيو عثمان مركز توحيد كذا جلس وين نعلى الداء وترى وأهل النار شدوا أن أبو بكر في النار وعمر في النار وحفصة في النار وين الصحابة كل النار تفقرتها مركز دين صح جلس بكله dadkaas ugu daran uguna saameyn badan waxay dadku ku soo jiitaan xub aal bayt rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aal baytka iyo saxaabada iyo baanu jecel lahay rasuulkan jecel lahay waxaasay ku soo jiitaan dadka waa in la iska ilaaliyo kuwa ku bidcada qaybta labaad ku xigta waxa weeye bid'atun fil ibadat ka ta'abbud lillahi bi ibadatin lam yashra'ha wa bid'o xagga ibadada ka soo gashay xagga ibadada sida inaad ibada ka dhigto waxaan ilaahay jideyn
ها إلهي وحسن عبادة كدقين وإلهي تشدين وإلهي كو أمرين وأن دين تأثر كلهين بعد عبادة كدقت هاي ما يكون في أصل العبادة باكمل شيء عبادة أصل لهيد بعد حقاق قدر درت بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع عبادة أن تشرتي وواجد تشرتي واحد كوسا درتي ميدان تشرين كأن يحدث سيدا قف كونو كانوا صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أصلا صلاة أن دينتو أقولي شنبا دينتو أقولي صلاة فرقها شنبا أقولي ميد لحاد با كوسا درت وأن مشروع هاي بشر رمضان با شريعة أقولي ودينتو تشريس mid kala ku soo darto waxa tir shacbaan 15 dambe ku jira ama shawaasha soo socota 15 hore ku jira waxa kamid ah a'yaad al-milad وغيرها مولديده دور بقول مولد باجرته مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولد فاطمه مولد زينب مولد عباس مولد بقول مولد علي مولد حسن مولد بقول iyo konton mawlid baajirte inaad mid un ka dhigato mawlid ee cibaada ka dhigato oo ilaahay ugu dhawaato waxa kamid ah inaad cibaadadii jirtay hore u jirtay wax ku kordhiso mid hore u jirtay wax ku kordhiso tusaale salaada duhur waa 4 ragcadood mid shanaad baad ku dartay casarkii oo kale 4 buha mid shanaad baad ku dartay subaxigu laba aha mid saddexaad baad ku dartay taasna laba ogola ta saddexaad waxa weeye cibaadana waa cibaado sax ah oo mashruuca oo diinta asal ku leh laakiin qaabka u gudanaysa qaab khaldan ah qaabka u isticmaal sifada ka khaldan صفة أداء العبادة المشروعة عبادة الصحة سنيد صفة استعمالها صفة خلدنا بأن يؤديها على صفة غير مشروعة صفة في عيني كأداء الأذكار المشروعة على صفة غير مشروعة أذكرتي إله اللي يقولوا وانشري فواحد يقولتي قاب خلدنا وحكوا حاجة أيضنا كتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة دي حدود انت كسرته أظهر كلا تجرسي سورة الله بعد كاسان فريسانيا أنا صومنو هل كاسان إلهي يقولوا وين يادو وحي إسقاط كسمان شد في النار وحين إسقاط كيدينتم ما أقلوا ما وحكم إذا أيضا غضب كأفراده ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم نصف شعبان وليلته بالصيام وقيام عبادة سعدة هاي فواحد الله سمى وقت قارة سيدة سؤالان 15 شعبان حمينك 15 شعبان تاينا صلاة الليل تكتو ما أنت 15 شعبان تاينا أتصومته إلا الصوم مشروع وي قيام الليل إلا السماء أو صلاة الليل تكدانا ومشروع لكن وقتها هو صمينا ذو 15 شعباني لحية 8 شوالي صدم شينو وري لحية مارسائي منها كذي هذا سيدا وده صون كان إسكوت مركا أوده قيامك يا صلاة الليل كان إسكوت مركا أوده مركا لا أودين هذا الله سبحانه وتعالى واحد أودين وما كلفين بدعاء حكم كده معي بدعاء الدين تإلهي ومحرم وضلال ومحرم وحرام قف كل عنا وضال وقفل صن رسولك وحي إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحندين كدق يا بدعة وبادو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لما حد يحكوا تصيان بدعة دين الإسلام كأنها محرم يا بادي يا مردود يا وحن الأقلين إن تهاي بيكون تصيني ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة وكاس وركبوا كسورش حديث كم عن نسوع ويه بدعة حق عقيدة عبادة كشوا محرم لكن تحريم كبا حوا كلا يرى تحريم كلفتيسه با حوا كلا يرى سوكيا يضو حرامين بقارن حرامنيس aad u adagta oo gaalnimo ay ku gaarsiinaysaa كتصالان كالطواف في القبور تقربا لأصحابها حبالها تكون ذيك حبال بعد كضواف تسير كعبدي adigoo waxa weeye rajaynaya dadka meesha ku aasanay wax gurmada ku sameeyaan oo wax khayr ah ka hesho wadabaa'ih waxaad u qash wanudur laha waxaad u nadarti waducaa asxaabiha dadka meesha ku aasan baad barid awoo hebelow ayay hebla nabiyo saxaabiyo iyo gargaar wal istiqaatati bihim gargaar bad weydiisad waxa soo dhan gaalnimada qofka gaarsiiyo waa kufri saraax cadwi ahay وكذا waxa la biyo qowlul jahmiyati wal mu'tazilati waxa asaguna ku xiga xogaa laakiin kooseeya ما هو من وسائل الشرك من أن قال لي موقف جارسينين لكن شركي كوتوري عقيدة حمو كالبناء على القبور والصلاة والدعاء إن مرتي قبورها دستو حباشي بلا ياكل واي حبالها هنا كورة حباشي دستي وقرحسي قربت كدول دستي وكنت كتدو شيدا إلهي بتكدل بريدي وحاصودا وحلو أقول هي
ma aha weeyaan shariicadu ogoshahay ma aha waxa weeye shirki iyo gaalnimo inay ku gaarsiiyaan laga yaabaa waxa la mid ah iyaduna qofka shay ku ridayay fisqi faasiqnimo cadaalad buu ka kaxaynaya كبدعة الخوارج والغدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة لأدلة الشرع خوارج تي وكنت كسكلا يعني قدرية مرجئة قالوا حيسك مثلا هاي أن قف هذا مؤمن آمنا بقف كدير واسك مؤمن بقى ها بماذا بلغ مرة آمنا كلي الإسلام قدرية قدر كلا كرواي وحليه وحلاه هو جانجوي مثلا واحد بحد الله بلا الأمر أنف واحد بحد الله بلاوي هراي وحي جري يا وحلاه جانجوي من ما جريان واحد بحد الله بلاوي ها هذا واحد بلا قدريه قدر بما جروه وما قدر الله حق قدره مرجئنا وكوا سيري الإرجاء بأمن سيئين وقف قدو آمنا بيه هذا معصود حق بعد انتو هدودنا هسكي نستو هدودنا ذاك هسكي لايو هدودنا خبرها هسكي عبو مؤمن ساس مؤمن كوي اعتقادات خلدوي oo aan la ogolayn waxa iyaduna aan la ogolayn bidcatu tabattul waxa loo yaqaan wasiyam qaa'ima fi shams bidcatu tabattul waxa kamid iyaduna oo macsi ah oo dambi ah inaad tiraahid si aan gabar baan u guursan ama gabadhu saysan ninba u guursan irbaha la isku dhufto gabadha waxay barataa waardeed ama wiilkan waardeed wuxuu bartaa marka waxa way dareenka oo dhan baan iska kaxaynaya oo waxa weeye guursan maayo saan dareen bay ugu soo dhicin irbad buu isku dhuftay ama kaniin buu liqay ama waa is dhufaanay qofka balaayo kale wax isku xiniyihi iska bixiyay waxa weeye bidcu asoo ka baqay inuu zina ku dhaco waxa kamid ah asiyaamu qaa'iman fi shamsi asaguna bidcooyinka waaweyn buu ku jira bidcada ma loo qaybin karaa xasanatan wa sayyi'a waa maya ma jirto wax u qaybiyay bidcada xasana wa sayyi'a قولي جري أرني بدعة في عنا واجرتها بدعة حنا واجرتها لكن باطل ويوركها رسولك عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة حكم بدعة كلها ضلالة بدعة لما أنت وبعدي وح لسوق الريبين مثلا رسولك لما بكل الريبين وبدعة ودن سودا بدعة الدين وضلالة قوليها أقيبيي سيدا أقيبيي يجري ضلالة يقير ضلالة لو كلا قيبية بدعتنا وحد الله أو توصة وهيستان ما شرتو وعير هذين عمر بعد ذلك صلاة التراويح اسمه كاني وتجي مقصود نعمة البدعة هذه صلاة التراويح النبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام استجانا ذلك تجي كذب أنا وحكى بقى أنت تكلوا واجبيه كذب ساس وتشي لكن النبي قال أنتوا دينتي لما يسترنتوا واحد بسود يلقى أمان هلينا عمر بسوع شيء ودب السوقي مصحف كإن لا قرب يدهن بقى كمده حيلا بدعة مصحف كإن لا جمعيه هالكتاب لقديه وبدعة في عنه حسنا بدهن مصحف كإن لا قرب بدعة معها نبي محمد شوى مصحف كلا قري عليه الصلاة والسلام كاقدرنا عمر وحو سمي بدعة وهبة مصحف كان عثمان بقى قري هالكتاب كدقي ثلاثة تراويحنا نديب وحوسوا جمعيه جماعة كتب شيدتك عمر بن الخطاب لبضنا وسحابة رسول الله رسولك وحو عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين marka ninkii bidca ku sheegay warkii shaqadii Umar qabtay asagaaba khaldan way marka qoliyahaas warkoodu war shaqeynaya ma as'ila su'aalaha 10ka عرف البدعة لغة وشرعا ما هي أنواع البدعة عموما سجود marka loo qaybsho laba marka sujud formulada guud ee bidcada loo qaybshaa ما حكم الابتداع في الدين دينتا إن بدعة lagu daro ma banaan tahay بين أنواع البدعة في الدين مع التمثيل بدعة دينتا نوعية بدعة الدين أصوغشه تصالي الكبحي هل يجوز تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وما الدليل على ذلك كيف ترد أصحاب هذا القول قفك كير هذا بدعة الله الله قيبية وبدعة حسنة هي بدعة سيئة الله قيبية قفك كير هذا ما حد يقول شوابيسة أرضي أرضي بعطي فنفورة دين بدبرتها قفك كير هذا بدعة الله الله قيبية وبدعة في عن هي بدعة حن بشر قفك كير هذا ما حد يقول شوابي سور الدين له halkaas aynu ku soo ururayna insha Allah taala casharkeeni bidcada khuraafaad ka leeyo tawxiidka halkaas aynu ku soo afmeerayna ilaahay idankiis darsigeenu ugu xiga insha Allah taala asaguna tawxiid ku saabsan baynu qaadan doonaa hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh